sanadkii 1984 ciidamada ammaanka ee gegida diyaaradaha magaalada London ayaa ka shakiyay nin baasaboorkiisa ay ku xardhan tahay inuu dhashay 1932 halka muuqaalkiisuna uu muujinayay inuusan dhaafin xataa sodomeeyadii. intaa dabadeed waxaa ninkii ka shakiyay deegaankiisa Hunza oo ay degan yihiin qabiilo muslim ah oo aan xanuun iyo gabowtoona arag. dadyagu halkaasi ku nool waxa da'doodu ay gaadhaan in ka badan 145 jir, halka daayarkoogana lagu tilmaamo 70 jirkooda marka loo eego awoodda caafimaadka iyo firfircoonidiisa. xanuunada ay ka midka yihiin kansarka, macaanka iyo dhiigkarka waxa ay u yaqaaneen xanuuno maala awaala oo cilmiyeysan. markaad haweenkooda aragtidna waxaad u malaynaysaa daayar qurxoon oo 20 jir ah, iyagoo 70 ah cumrigooduna galbaday ayaa haddana ay guursan karaan islamarkaana ay u badali karaan. kama jiraan halkan aaladaha casriga ee teknolojiyadda iyo sidoo kale isgaarsiinta noocay doontaba ha noqotee waxaa bulshadu caadaysatay shaqo adag iyo firfircooni dheeri ah oo halgan ku suntan. qabiiladani waxay degtaa aagga buuraleyda Karakoram ee waqooyiga Pakistan, waxaana dhex marta dooxo loogu yeedho toga waaritaanka. haddaba waa maxay sirta ku duugan gabow la'aanta daayarka dadyowga Hunza ee muslimka ah? halkani waa Suwaydali TV. haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar, dawankana taabo si muuqaal kastoo aan halkan ku baahino uu kuu soo gaadho. mahadsanid. dalka Pakistan ayay ku dhaqan yihiin qabiiladan Hunza ee muslimka ah, waxayna aaminsan yihiin madhabta Ismaaciiliyada. tiradooduna waxay gaadhaysaa 920,000 oo qof. macnaha ereyga Hunza wuxuu u taagan yahay jabhad midaysan oo meel ka soo wada jeeda. xubnaha ka tirsan qabiiladanna waxay raacaan hab dhaqan nidaamsan oo maalinle ah ayna joogteeyaan, waana sababta ka dambaysa daayartooda aan marnaba lumin. hanaanka cunteeda ay ka siman yihiin waa cunista khudaarta cayrinka ah, midhaha borotiinka sida caanaha, ukunta iyo dhammaan cuntooyinka fiitamiiniska qaniga ku ah. waxaanay soomaan sanadkii 3 bilood oo aysan wax cuntaa afkooda gelin marka laga reebo casiirka darayga ah. haddii aan eegno qubayskoodana waxay ku maydhaan biyo qabow xataa marka ay cimiladoodu aadka u qabowdahay. in la gucleeyo masaafo gaadhaysa 20 kilomitir iyadoo la qoslayo waa caado maalmeed ay samayso qabiiladani, waxaanay siisaa raggooda 80 jirka dhismaha dhalinyarta, haweenkoodana muuqaalka carruurta. dumarku waxay ku raaxaysanayaan caafimaad wanaagsan oo u sahlaya inay 70 ubad ku dhalaan, halka ragguna awooddoodu badan tahay, kartina ay u leeyihiin inay hawl adag qabtaan. maqnaashaha ay ka baaqatay tiknolojiyaddu noloshooda waxay u horseeday inay wax kasta qaab dabiiciya ku qabtaan iyagoo adeegsanaya tamartooda. sidoo kale waxay aad ugu fiican yihiin jimicsiga loo yaqaano yoogada iyo kulamada ay la qaataan ruuxdooda. shaqo ma jirto cudurrana ka dheer. inkastoo ay qabiiladani ku caanbaxday awoodda jidheed iyo kartida xaddaafka ah haddana shacabka reer Hunza ma laha dhaqdhaqaaqyo ganacsi iyo warshado toonna. noloshooda dhaqaalena waxay ku kooban tahay iibinta khudaarta iyo midhaha suuqyada dhexdooda. taasina uma soo saarto dhaqaale ku filan bulshadan, balse waxay gargaar hantiyeed kala kulmaan dowladda iyo hay'adaha maxalliga ah, kuwaasoo aan uga cabsi qabin inay weydiistaan kaalmooyin caafimaad dadyowgan daryeelay badqabka nafahooda oo aan weli baranin macnaha cudurro ka jira dunida aan ku noolahay sida kansarka, macaanka iyo dhiigkarka. waxaanay taariikhyahanadu sheegaan inaysan weligeed lagu arkin tuuladan dhammaan caabuqyadii ku baahay dunida, ama hadda ha noqoto ama mar horeba. dhibaatada keliya ee caafimaad ee ka cawdan qabiiladani kana jirta deegaanadan ayaa ah khalkhal ku yimaada aragga indhahooda oo uu sabab u yahay qiiqa badan ee ka soo unkuba dabka badan ee wax ku karsadaan. haddaba daawade, mana la wadaagi karta haddii aad garanayso qabiilo la tacaasha xaaladeeda caafimaad oo daryeesha sida Hunza?